kula laga hadashay dagaalka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Amarta qodobkaasina waxa ina faahfaahinaya wariyaheena Ibrahim Maxamed Xasan Ibrahim Jumuuni. xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalka iyo mas'uuliyiin kale ee ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa si kulul uga hadlay dagaal bileedka ka soo cusboonaaday degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. dad badan ayaa ku naf waayay dagaalkaasi oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay gudaha iyo duleedka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. waxa uu u dhaxeeyaa laba maleeshiya beeleed oo halkaasi wada dega. mas'uuliyiintaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dagaal bileedkan ka soo cusboonaaday Walaweyn ay salka ku hayaan arrimo siyaasadeed isla markaana aanan loo dulqaadan karin. inta la xaqiijiyay dagaalkaasi waxaa ku naf waayay in ka badan 15 ruux oo isugu jira shacab iyo maleeshiyaadkii dagaalamay, halka dhaawacyaduna ay intaasi ka badan yihiin. xildhibaan Mayow Mustafa Xasan oo ka tirsan baarlamaanka labaad ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in dagaaladani ay yihiin kuwa siyaasadaysan ka mas'uul ahaan aysan u dulqaadan karin in dhiigga shacabka dana siyaasadeed lagu gaaro. jimcihii shalay ayaa waxaa gudaha degmada Walaweyn ka dhacay arrimihii ugu foosho xumeyd kadib markii qoys danyar ah guryahooda lagu weeraray. dhinac ka mid ah labada garab ee dagaalamaysa ayaa hal goob ku dilay aabba iyo 4 caruur ah oo uu dhalay, kuwaasi oo guryahooda loogu galay. waxaa xusid mudan dagaal bileedkaasi oo in badani ku soo laablaabtay degmada Walaweyn iyo nawaaxigeeda welina xal waara lagama gaarin. Ibrahim Maxamed Xasan Ibrahim Jumuuni, Radio Wadani and TV.